akademiga nabadda iyo horumarinta Somaliland ayaa maanta u qabatay magaalada Gabiley dood ku saabsan xukuumadda dejinta iyo maamul wanaagga golayaasha deegaanka ee dawladaha hoose ee degmooyinka dalka. doodan oo hogaaminaya Xasan Raaga Faahiye oo kamid ah gudida hogaaminta xukunka dejinta akademiyada nabadda iyo horumarinta Somaliland iyo waliba Maxamed Cabdi Cumar oo kamid ah saraakiisha akademiga iyo nabadda iyo horumarinta Somaliland ayaa doodaasi waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo ay kamid yihiin bulshada gobolka Gabiley iyo qaybaha kala duwan iyo waxgaradka iyo golayaasha deegaanka. waxaana halkaasi lagu falanqeeyay sidii loo waafajin lahaa in la wacdigeliyo golayaasha deegaanka ee soo socda faahfaahin looga siin lahaa fahanka bulshada ee maamul dejinta golayaasha deegaanka ee dawladaha hoose. Xasan Raaga Faahiye oo kamid ah gudida horumarinta xukuumadda dejinta akademiyada nabadda iyo horumarinta Somaliland oo go'aanka halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ujeedada kulankani isagoo kula dardaarmay ka soo qaybgalayaashana inay ku dadaalaan arrinkaasi meel u marin lahaayeen. Maxamed Cabdi Cumar oo kamid ah akademiyada nabadda iyo horumarinta Somaliland ayaa sidoo kale ayaa sheegay in loo baahan yahay in reer Gabiley ay natiijo wax ku ool ka soo saaraan doodani ku saabsan dejinta maamulka golayaasha deegaanka ee dawladaha hoose ee dalka. waxaanu sheegay in loo baahan yahay sidii looga wada qayb qaadan lahaa arrinkaasi. gabagabadii halkaasi waxaa su'aalo dhowr ku weydiiyay isla markaasina la isku weydaarsaday aqoonta ku dhex jirta bulshada iyadoo bulshada qaybaha kala duwanina halkaasi kaga jawaabeen su'aalaha ay weydiisay akademiyada nabadda horumarinta Somaliland. kulankan ayaa markii dambe waxaa ka soo baxay natiijo wax ku ool ah oo bulshada u horseedi doonta wax ka qabashada golayaasha deegaanka ee doorashooyinka soo socda. kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeysay ee lagu qabto magaalada Gabiley iyadoo kulamo noocan oo kale ah hore aan lagu qaban. waa Nimcaan Dheeg Ibraahim, magaalada Gabiley.